his name? What's his name? Say his name. What's his name? Say his name. What's his name? Say his name. If the law don't get it, shut it down. If the law don't get it, shut it down. If the law don't get it, shut it down. If the law don't get it, shut it down. If the law don't get it, shut it down. If the law don't get it, shut it down. If the law don't get it, shut it down. $11 عيد. Governor Walso كسر $11 عيد. دوني مينو. دوني مينو. يجي عب. دوني مينو. يجي عب. يجي عب. بوليس حب. بوليس حب. بوليس حب. حضروا. عدالة درو. عدالة درو. عدالة درو. عدالة درو. kulanti wacan wanaagsan daawadayaal waxaan ku suganahay aqalka governorka stateka Minnesota ee ku yaal caasimadda St. Paul dadweyne aad u careysan oo isugu soo baxay dilalka dhaca mar walba booliiska ay u geystaan dadka madow ee guud ahaan gobolka Minnesota halkan waxa isugu yimi familigiisii iyo dadweyne badan oo Soomaaliyeed oo dhammaan raadinaya inay helaan cadaalad waxayna xiran yihiin fanaanada ay ku qoran yihiin waxaan rabnaa cadaalad waxaan u rabnaa doolaal ciid haddaba waxaan la dhex qaadi doonaa mikrofoonka si aan u ogaado maanta waxa ay raadinayaan iyo waxa ay doonayaan inay ka helaan governorka gurigiisa hortiisa iyo sababta ay isugu soo baxeen inaan wax ka weydiiyo waa gabadh ka mid ah gabdhaha isku soo baxay waxaan wax ka weydiin doonaa maanta dareenkeeda iyo waxa ay u hortaagan tahay aqalka governorka uu ka degan yahay magaalada dareenkaygu maanta aad baa shuruucdayda u kacsan tahay waxaanuna dareemaynaa Soomaalidu inay noo soo baxaan ina gofarnaha iyo dawladda inaanu ka helo cadaalad wadanka waanu degannahay waxna waanu ka leenahay marka cadaaladii wadanka aanu u nimid baanu u baahannahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dareenkayga maanta aad buu u xuyahay waliba waxa soo xusuusanaya wiilka yarka ama wajigiisa ma fiirin karo waxaan rabnaa inaan cadaalad helo waxaan rabnaa mid kale Somali community ma aha right inay sidan ahaadona hal ruuxa oo familkiga inuu taagnaado ma ruuxayna maanta haysanin bari bay haysataa marka waxaan u baahanahay cadaalad maxaad rajaynaysaa inaad u sheegtid governorka iyo dadka ku daawanaya governorka waxaan u sheegayaa gurigan aad ku jirto ee daaqada naga fiirsanayso ka soo bax dareenkanagana mooji at least noo soo bax dareenkaygu aad buu u kacsan yahay sababtoo ay tahay waxa weeyaan wadanka haddaan Soomaali nahay ama aan Muslim nahay dhibaato badan baan ku qabnaa dad ilmahanaga la dilo dacwo oo laga aqbalin maxaan ku dhahay ignore gareeyo oo wax allaali waxa dun wixii codsi ay sheegtaan ama aan ku hadallo on dhaga jalaqna loo dhahayn annagii on midaysnayn on xaquuqdanada iyo maxaan ku ilaahay waxa naga maqan aan wada taagnayn oo isku fiirsanayna oo maxaan ku dhahay aan istaneynaynin dhibaato badan baan qabnaa dareenkayguna uu kacsan yahay dhinacna gaaladii iyo maxaan ku ilaahay dawladda on dan ka lahayn iyo annagii on dad isku duuban oo isdaneynay ahayn oo maxaan ku ilaahay aan dan iska lahayn marka waxaan leenahay Soomaaliya isa soo raaca oo hal meel ka soo istaaga oo xaqiina iyo xuquuqdiina ka hadla maanta ninba haysataa barina qof kale haysan marka wiilashiina iyo gabdhihiinaba waxa weeyaan u daneeya oo banaanka isu soo taaga oo dantiina u sheegta oo xuquuqdiina ka hadla oo ilmihiina wax u qabta iyo aayatiinka iyo mustaqbalka wadankii waa degantiina waa joogtaan oo kama tagaysaan hase ahaatee isma ogidin oo dhibka idinka haysta ma ogidin oo ma dareensanin marka waa inaad dareentaan dhibka idinku haysta wadanka waa inaad dareentaan oo soo baxdaan oo midowdaan oo isku wax doontaan oo wax u qabsataan aad iyo aadna waan idin salaamayaa dareenkaygu aad iyo aad buu u kacsan yahay wax aan ka hadli karo oo ka sheekayn karo halkan ku soo koobi karana ma aha dhinac walba xagga governmentiga iyo dawladda waa laga seexday ilaa hadda waxa igu soo noqnoqota wax cadayn ah xitaa qaabkii loo dilay hadii xitaa nala faahfaahiyaa ayaa noo ahaan lahayd oo xagga dawladda ah wixii dhanaa governmenti baa tiraahdaa boolis baa tiraahdaa kii wax meel fadhiya wixii dhanaa waa isla qariyay xitaa kuwii maxaa la dhahay newska isla wada qariyay xitaa lama soo daynin ambulance ninka lagu qaaday xitaa lama soo daynin la dilay waa xagga governmenti iyo dawladda xagga Soomaalidana waxaan leeyahay
qof walba maxaa la dhahay haddayna inagu aynan garab isa siinin cidna garab inama siinayso dawladna inama qiimaynayso community-ga Soomaalida waxaan leeyahay nin walba maxaa la dhahay haddayna inagu iscaawin cidina caawinaysa malaha marka waa in la soo baxo waa inaan isa siino maxaa la dhahay garab waa inaan maxaa la dhahay xaqeena inagu soo dhacsana cidina soo dhicinaysa malaha meesha waxaan u taaganahay oo aan u soo baxnay maanta oo Jimco ah iyo berito haddii aad sabta iyo hadda inaan nimaadno baan rabnaa governorka gurigiisa hortiisa waxaan u taaganahay go'aankii ka soo baxay Dakota County ahaa inay dhahaan doolaal isaga ayaa waxa badda bilaabay cadayna ma hayaan waxay wana tuseen ma jiro waxaan u taaganahay oo kale oo cadaynaynaa qoladii BCA-ga ahayd soo weerartay xaafadayda argixisada ahayd ugu samaysay timid xaafadayda ee gurigay burburisay ayay u dhiibeen kiiskii waxa la yiri idinku soo baara waxa way marka qoladii kana burburisay sida aad ogeydeen hadda daawateen video noo galay oo waliba ay googooyeen oo intii ay lahaayeen intan baa fiican ay soo reereebeen waxa way qoladii go'aanka ay sheegeen ayaanu diidanahay waxaan aan diidanahay kaleeto cadaalad xumada lagu hayo haddaanu nahay ummadda Soomaaliyeed waxa way doolaal buu dhintay Alle raxmad haddii aan ka aamusno maanta waan ogahay wiilkaygu ma soo noqonayo haddaan maanta aamusno waxaa dhici doonta arintani way soconaysaa oo tusbax go'ay way noqon doonaan Soomaalida wiilal badan oo Soomaaliya baa la laayay gabdhaha wala laayay wax ka hadlayna ma jiro waxaan rabaa marka Soomaalidu inay isu soo wada baxaan la isgarab istaago waxa way berita ma garanayna ruuxa oo noqon doono waxa way midkay daawanay ma adoo noqon ma wuxuu noqon wiilkaaga ma wuxuu noqon in adeerka Allah u yaclam waxaan marka rabnaa inay Soomaalidu ay soo baxaan oo banaanka u yimaadaan oo diidno cadaalad xumada lagu hayo iyo cunsur nimada lagu hayaan rabnaa okay waxaan ka rajeynayaa walaalada Soomaalida waxa weeye بريتو وصبتي وشغل وهاوي ما شرته مالك كذا مثلا واحد وحنكرر شيء بري أنا الصومالي بدن إيمان دونان هذه أنا وأنا وعصري وأنا أنشألها ولا ذي صوماليات وحي حق أن أقولها أهيد إن يجرب استاجان أو أن أسكت دوبنانه أو أن كهر تغنو عنصر نمذا يدبعتها يوحندتك ay boolis ku hayaan ummadda Soomaaliyeed inaan isgarab istaagno si aan u badbaadino wiilal iyo gabdho badan iyo nafaf badan oo Soomaali ah si aan uga hortagno oo loogu soo dhicin baan ka codsanayaa kana rajeynaya inay Soomaali badan soo bixi doonaan darankayga waa mid caro leh iyo umal dolaal ciid oo December 2020 يا لدري بلاش بان الودلي بوليس كانوا حيرادين نقري ويستي حبط بصوب حي وحي فدنسين أنا لما كينين سيدان كور هايو إلا هادنا واحد جسسمان هلين that's why أنا ماشان هالكم وشوقنا مركا عدالة درادة مراكن كا يتاسك تصيصا وليبا لغلق مايو dadka madow dolaal wax kala muusa garabsanin waa nin madow ahaa muslim ahaa taas way maanta duu aan la cadaan arintiis mar banaanka la waxayn lahaa marka cadaalad darrada way jirto weligeed wayna jiri doontaa haddii la waayo wax ka gilgisha oo diida oo naca oo cadaalad raadiya marka sababta kulligeena aan isugu nimid waxa weeye inaan maarta cadaalad aan waxayno waxaan hor joognaa governorka gurigiisii uu ka degan yahay daaqadu naga fiirinaya hadda mana uu soo waxaysmayo marka waa inaan u istaagno waa inaan anaga dadna matalo aan meesha ay noo joogaan weeye sidaas aan uga bixi karnaa haddii kale maanta ruuxa madow waxaa dilaya xabad coronavirus-kan laga cararayo waxaan oo dhan waxa ka sii daran xabadda marka jaanisku qof madow uu dhalinyaro u noolaado way yar tahay
hadda waxa dhimanaya bariyahan oo dhan waa dad dhalinyaro ah marka aabba ahaan waa ilmo dhalinyaro leh waa inaan marka aan guriga joogin waa inaan u hadlo way ciyaalka bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u taaganahay meesha cadaalad sidoo ugu heli lahaa doolaal ciid mana deyn doono oo ma joojinayno maalin walbana qof walba Soomaaliya way qabsan iyo qof walba madow ah marka waxaan codsanayaa ummadda islaamka gaar ahaan Soomaalida inay yimaadaan ka qayb galaan berri saa dambe way soconaysaa marka waxaan codsan lahaa cadaalad degdeg ah inuu Ilaahay siiyo reerka Soomaaliduna inay ka soo qayb gasho hadalka waa laga fiican yahay laakiin inta ma ku soo koobi lahaa maanta waxaanu taaganahay gurigii duqa magaalada degmada Minnesota ama loo yaqaan governorka Walz anaga oo u taagan in aan u raadino cadaalad gaar ahaan dolaal ciid dolaal waxa dilay ciidanka booliiska Minneapolis waxaanu rabnaa in uu governorku sidii uu sameeyay kaysaska kale sida George Floyd iyo Dante Wright in uu u dhiibo kayska xereer iyaalaha guud gobolka Minnesota Keith Ellison sidoo kayska u dabagalo waan ognahay Mareykanka askartu amba ciidanka booliisku markii ay dadka dilaan ee xaqdaro ku dilaan inta badan waa la diidaa amba lama soo runtii lama soo qabto laguma xukumo dil markii ay noqoto askari madow amba sidii ku dhacday inka Soomaaliga askari madow oo Soomaali hadduu qof dilo isaga waxa lagu soo xukumayaa dil laakiin marka uu askari cadaan sida hadda gabadhan Dante Wright dishiba laguma soo xukumayo dil waxay ka mid tahay cunsurnimada wadanka ka jira oo aan rabnaa isbedelan ka rabno mar haddii ay Minneapolis ayba noqotay saldhigii laga raadinay cadaaladda dilkii foosh xunaaya dhaqaajiye caalamka oo George Floyd marka maanta reerkan taageeraynaa mujtamaca Soomaalida waxaan leenahay ka soo qayb gala dooda ka socota oo ah runtii inaan raadinaano cadaalad taasoo saalan weyn ugu wada leh kulligeen maanta waxaan isugu nimid oon joognaa guud ahaan reer Minnesota gaar ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed guriga uu degan yahay governorka gobolka Minnesota Tim Walz ujeedada aanu nimidna waxay ahayd sida aad la socotaan waxa dhacay 8 bilood ka hor dil ay geysteen ciidanka booliiska Minneapolis dilkaas oo ahaa dil arxam darro ah kadibna ay weerareen marxuumka ay dileen gurigoodii aabihii iyo hooyadii iyo caruurtii oo jiifa habeen kala badh ay u tageen arrintaasoo ilaa iyo maanta Hennepin County iyo booliiska Minneapolis waxay ka qabteen aysan jirin dhibka ay geysteenna wiigii hadda la soo dhaafay ay ku dhawaaqeen in nimankii dhibka geystay ee marxuumka dilay in wax dambi ah oo loo haysto uusan jirin iyo maanta daarnaa isu imaanshaha nagan waxaan rajaynaynaa in familka doolaal ciid ay helaan cadaaladaas oo ku salaysan in wiilka dhibkii loo geystay waxaad ogtiin in 20 second kaliya ay booliisku keeneen ilaa iyo maanta waxaan rajaynaynaa in siday wax u dhaceen oo full investigation ah inay siiyaan familka iyo dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed welina ma hayno waxaan rajaynaynaa inta aan ka helayna doolaal ciid in uu helo justice waan wadi doonaa mudaharaadkan waan u istaagi doonaa waxaan ku baaqayaa jaaliyadda Minnesota guud ahaan maanta waxay haysataa beelay haysataa berri aday ku haysan doontaa inaad soo baxdaan oo isku duubnaataan in dadka aan u codaynana hadda kadib aan ka fiirsanno in Soomaalida maadaama aan dad immigrant aan nahay dad islaam aan nahay dad balaaga aan nahay arrintan haddaanan u istaagin oo ayna Soomaalidu garbaha aynan isqabsanin oo aynan beela ciid aynan garab istaagin berri toola ayaga ayay ku iman doontaa maanta beelay haysataa nobody knows berri toola qofka ay ku dhici doonto masiibadu balaayadu mar walba reer bay haysataa waxaan ka codsanayaa marka jaaliyadda guud ahaan in ay yimaadaan oo ay soo garab istaagaan beela ciid dhammaan inta jaaliyadda ee degan labadan magaalo ee mataanaha ah waa Friday-da oo maanta ah iyo berri oo Saturday ah iyo berri dambe oo Sunday ah waxaan ka codsanayaa oo ku celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba in dadku ay soo baxaan oo garab istaagaan beela ciid iyo familkiisa aad baan idin wada salaamayaa marxiim waxaan joognaa meeshii guriga governorka
state of Minnesota waxaa yimid dad badan laakiin waxaan ka jeclaan lahaa dad intaan ka sii badan inay yimaadaan waana waay state of Minnesota in aynu Soomaalida degan aad iyo aad ugu badannahay waxaan u baahannahay arrimahan oo kale markay dhacaan inaynu dhammaanteen soo wada baxno si sharciga againstiga inagu aynu uga hortagno arrintan doolaal ciid aan maanta u taagannahay ma aha kaliya wax doolaal ciid khusaysa iyo familkiisa oo wax inagoo dhan inoo fiican doolaal ciid kaliya lama dilin wiilal kale oo badan baa la dilay oo Soomaaliyeed ama madow ah marka wixii xaq darro ah state-ka ama government-iga ama booliska inaga yimaada inaynu ka hortagno oo aan tusno inaan diidanahay oo diidi karo yaa loo baahan yahay mar kasta waxaan rajaynayaa berri dad sidan ka badan inaad ku soo baxdaan berri iyo hadda labadaba way jiraa banaanbaxa marka biliis hala soo baxo mudaharaadyadan ayaa noqon doona mid sii socon doona berri iyo berri dambe inta ay cadaalad ka heleenana dadku waxay yiraahdeen kama tagi doono aqalka governorka hortiisa Asmar Cabdinuur Nabad TV Minnesota. What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! When black lives are under attack, what do we do? Stand up, fight back! When black lives are under attack, what do we do? Stand up, fight back! When black lives are under attack, what do we do? Stand up, fight back! What do we do? Stand up, fight back! What do we do? Stand up, fight back! When Muslim lives are under attack, what do we do? Stand up, fight back! When Muslim lives are under attack, what do we do? Stand up, fight back! What do we do? Stand up, fight back! What do we do? Stand up, fight back! When our community's under attack,